بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو عنا ونكسن داودياشا قيمه هي قدرينتا مدن oo halka aad nagala socotaan waa telefishinka qaranka Soomaaliya ee stuudiyihiisa magaalada Minneapolis ee wadanka Mareykanka daawadayaal dhageystayaal telefishinka qaranka Soomaaliya iyo waliba Liibaan Show toddobaad walba waxaanu ku soo qaadanaa waxyaalo bulshada Soomaaliyeed ay aad u xiiseeyaan waxaanu ku soo qaadanaa kamid ah dhanka waxbarashada sportiska fanka iyo suugaanta iyo waliba siyaasadda anagoo waliba waxyaalo fara badan iyo haweenka dhaqanka Soomaaliyeed iyo hidaha iyo dhaqankeena aanu mar walba idin keeno stuudiyaheena Liibaan Show toddobaadkan waxaanu ku soo qaadan doonaa marti ku ah nin jaaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota aad loogu yaqaan Siyaad Cali waxa uu la shaqeeyaa Senator Amy Klobuchar oo ay kamid tahay baarlamaanka dalka Mareykanka isla markaasina ay ugu jirto gobolka Minnesota Siyaad Cali in dheer ayuu la shaqeeyay Senator Amy Klobuchar Siyaad Cali iminka waxa uu soo taagay inuu u tartamo xilkaasi oo ah ay jaaliyada Soomaalidana ay aad u taageersan yihiin xilkaasi oo ah guddoonka waxbarashada ee gobolka Minnesota guddoonka waxbarashada ee gobolka Minnesota ayaa runtii ah mid ay jaaliyadu ay u rabto Siyaad Cali ayaa waxa uu ballan qaaday jaaliyada Soomaalida inuu barnaamijkaasi markuu uu ku guuleystana waxyaalo fara badan uu wax ka bedeli doono dabcan waa laga yaabaa inuu afki Soomaaliga xitaa dalka Mareykanka uu lagu bari doono dadka Mareykanka u dhashtay xitaa waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo stuudiyaha Liibaan Show iyo waliba telefishinka qaranka Soomaaliya waxa marti ku ah Siyaad Cali oo u tartamaya guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis waa gobolka Soomaalida ay aad ka ugu badan tahay ee wadanka Mareykanka Siyaad markii hore ku soo dhawaad telefishinka qaranka Soomaaliya iyo waliba Liibaan Show Liibaan aad baan kaga mahadnaqayaa fursadan aad siisay waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo dhammaan shaqaalaha Liibaan Show waana kaga mahadnaqayaa fursadan qaaliga aad siisay waa gartay aad baad u mahadsantahay mudane dadkana daawanayo dabcan si ay ma aragtay ay ku ogaadaan maadaama adigu aad xil aad u tartamaysid ee gobolka Minnesota gobolka Minneapolis ee jaaliyada waliba aad ay ugu badan tahay Soomaalida taariikhdaada runtii walowba ay aad u dheer tahay bal adigoo noo soo kaabaya waxbarashadaada iyo waliba taariikhdaada bal waxay nooga sheekay marka hore waa su'aal aad u fiican Liibaan anigu waxaan ka baxay jaamacadda University of Minnesota gobolka Minnesota waxaan ka qaatay shahaadada masterate-ka oo aan takhasuskayguna ahaa waxbarashada ka hor waxaan wax ku soo bartay waxbarashada heerka kusoo qaatay dalka India oo aan ka baxay jaamacadda Usmani University halkaas oo aan ka diyaariyay shahaadada bachelorta loo yaqaan kadibna haddana waxaan ka diyaariyay laba master baan ka diyaariyay Master of Commerce iyo MBA oo Master of Business Administration marka tacliinta muddo ku soo jiray xagga shaqooyinka waxaan hadda la shaqeynayay muddadii 6 sano ugu dambeysay la taliye u ahaa arrimaha bulshada arrimaha Afrikana waan kala taliyaa US Senator Amy Klobuchar oo ka tirsan boqolka senator ee talada dalka Mareykanka haya ka hor waxaan ka soo shaqeyn jiray gobolka Minnesota waaxda shaqooyinka ka soo shaqeeyay muddo dheer waxaan soo noqday Human Rights Commissioner waxaan ku jiray golaha xuquuqul insaanka oo mayorka magaalada Owatonna ay magacaabay college-ka la Riverland Community College waxaan ka ahaa maartay adjunct faculty ama part time si maartay galaasiyaan dhigi jiray marka in muddo ah waxaan ku hawlanaa arrimaha bulshada iyo shaqooyinka maartay dawladda runtiina waxaan mar walba maartay ahay dadka wax muhiimadda koowaad siiya waxbarashada marka intaasaan maartay kusoo koobay aad baad u mahadsantahay runtii sidaan ka warqabno gobolka Minnesota waa gobolka jaaliyada Soomaalida ay aad ka ugu badan tahay dalka Mareykanka marka aad fiirisid iskuulo fara badan ayaa ku yaala ha u badnaadeen kuwa charity-ga ama ha noqoto kuwa state-ka iskuulo aad u fara badan ayaa jira adi ahaan maadaama xil aad u sareeya aad ma taqaan la shaqeyn jirtay
senator Amy Klobuchar xafiiskeeda waxyaalaha kugu kalifay ama kugu dhaliyay inaad iskuul waxbarasho aad u ordid maxay tahay siyaad waxyaabaha igu dhaliyay waxaa kamid ah baahi jirta awgeed baahi runtii xoog leh baa jirta waxaan dareensanahay in ay u baahan tahay waxbarashada in la tayeeyo guud ahaanba magaalada Minneapolis iskuulada dadweynaha waayo sanad dugsiyeedkii tagay ardayda qalin jabisay dugsiga sare 50% ayaa qalin jabiyay marka waxaan is leeyahay arrintaasi waxaan qaadan karno maaha in 50% arday ay 50% ay qalin jabiso kontana ay guul daraysato oo waxbarashadii ay maartay ka saaqido waa wax ayaan darra away marka waxa muhiim ah inaan ogaano ciladu meesha ka timi marka waxa isleeyahay baahida waxbaad ka qaban kartaa anigoo la kaashanaya khibradeeda aqoonteeda iyo ummadda maartay gobolka ku dhaqan taas waa mid guud ahaan iskuulada wada khusaysa أنا واحد شاعر هاي وحنا ربعنا المستوى أرض كستين وقولستو حل قارو ويجسي سارين هاي عروتا صوماليات إيو أرض كستو أو حبرشة مركا أنسلي هاي وحوب باهي باهي أما تاجر ديرادا واي أنا وحنا قف صوماليا community كان حل قارا باهي كسارن وأنا حل واجب هو قف كستسارن arrimaha murugada leh runtii aan waqtiyada qaar jeclahay inaan xitaa isiloosiyo waxa kamid ah tayada ardayda oo aan sinayn waqtiyada qaar liiban waxaad arkaysaa laba arday oo isku fasal fadhiya oo aan isku tayo ahayn xagii aqoontii wax akhrintii wax qoristii iyo cilmiga kaleba marka arrintaasi waxay u baahan tahay arrin in wax laga qabto u baahan ميزانية دوات تلا سكول الذي ميزانية كفلان بحيستا ولغوتها ياردة معلمين ميزانية ده قبل كان سكول الذي Minneapolis Public Schools وحكى بديهين تدوب بقولي $1 مليون مريكي كورو دافت راح أصله دي ميزانية ده اسمه كوها بوريل الجليل وهين أرض كست يعني حوجة لسارسيدو يقول يسلها wax badan baa laga qaban karaa marka arrintaas waxaan ii muuqda inay jirto cadaalad darro marka aad leedahay siyaad waxbarashadii dhanka boqolkiiba 50 ardaydu runtii ma baas garayaan imtixaanadii iyo meesha la rabay ma gaaraan wadankan aanu ku noolnahay gaar ahaan Minneapolis gobolkan Soomaalida degan waxa la degan ajnabi kala la degan oo runtii ayagu sidoo kale qaxooti ku yimid ma ciladu ma Soomaalida kaliya haysa mise and the whole aan dhihi karno ma aragtay gobolka ama Minneapolis magaalada ayaa ka jirta problemkaas mise Soomaali ahaan ayaa ma aragtay imtixaanadaasi iyo problemkaasi haysta isla arrintan waa arrin muuqato weey arrin maaha yani midnada ku jirta maaha arrin aan la dhuumaalaysanayno sheegitaankeeda inaanu dibadda soo dhignana maaha wax daraasaad badan laga sameeyay waa arrin cad dadka laga tira badan yahay bayna qayb ka nahay dadka laga tira badan yahay waxa kamid ah dadka African Americanka inaguna qayb ka nahay asal ahaan ka soo jeedna Soomaaliya dad badan oo East African ah jira oo iyaguna maartay inay jooga halkan ummado kale jira iyaguna sida maartay dadka Latinaha la yiraahdo oo dad badan oo qaar badan oo kamid ah ay ka yimaadeen dalka Mexico la yiraahdo marka waxaan oran karaa arrintaas si waxay aad u khusaysaa dadka laga tira badan yahay oo inaguna kamid nahay marka maadaama aan gobolka Minnesota uu yahay gobolka aan ugu tira badan nahay Mareykanka saameynteedina qayb weyn bay ugu leedahay oo aad bay loo saameynaysaa marka tii waqtiyada qaar waxay keenaysaa in arday badan ay guul daraystaan oo ilmihii markii uu high schoolkii dugsiga sare ka bixi waayo inuu markaas maartay faldambiye faraha la galo amaba uu maartay
hankii iyo wixii laga filayay aanu maaragtay gaadhin taasina khasaaro weyn waxay ku tahay bulshadeena Soomaaliyeed oo dhinac walba markaad ka eegtid qofku wuxuu horumar gaari karaa markuu wax barto bulshada markay horumar waxay gaari kartaa markay muhiimadda koowaad siiso waxbarashada oo ay tayeyso aqoonta jiilka soo koraya si jiilba jiil uu bedelo marka arrintu wayna wada khusaysaa sida aan ka warqabno siyaad ardayda Soomaalida gabdhaha runtii khaasatan ayaa aad ugu dadaala waxbarashada wiilashu aad u yar yihiin drop off kana iskuulada markii la fiiriyo waxa u badan baa la wiilasha Soomaalida arrintaasi maxaa keeni kara isleedahay marka gabdhuhu way naga wanaagsan yihiin haddaan meel kale kaa tuso bal tan la garay ardayda la garay oo waba arday da'doodu yar tahay haddii aad ka qayb gasho shirarka waalidiinta loogu yeedho ama doodaha la xiriira waxbarashada dadka ugu faraha badan yimaada waa hooyooyinka waa gabdhaha weeye ragga imanaya waa tiro yar yihiin marka waxaan isleeyahay gabdhuhu waxay fahmeen muhiimadda ay waxbarashadu leedahay waxayna siiyeen muhiimadda koowaad halka raggu ay muhiimadda koowaad siiyaan waxyaabo kale yar yar iyo waaweynba marka arrinta gabdhaha Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu amaanayaa gabdhuhuna waa laf dhabarta bulshada weeye laakiin iyagana waxaa la rabaa inaan ku dayano oo u istaagno sidii aan u tayan lahayn wiilashuna waa inay isku dayaan in la tartamaan gabdhaha laakiin gabdhaha maartay gabdhaheenu amaan badan bay mudan yihiin halkaan guul weyn ba ka soo hooyeen guulo badan way soo hooyeen runtii oo aan soo koobi karin laakiin arrinta waxbarashada yani arrintaasi arrin qarsoon ma aha waa gartay siyad laakiin waxa kale oo jira iskuulada marka aad fiirisid parent conference oo kale markuu jiro iyo gaabkan aan sheegnay oo maaragtay ilmihii waxbarashadooda hoos u dhigaya ma la isdhihi karaa waalidka ayaa u sababa sababtoo ah iskuuladii marka aad fiirisid waxaan badanaa imaada waalidiinta hooyooyinka ayaa ilmaha soo wada aabihii meesha ma lagu arko ma la dhihi karaa marka gaab aabbaa ka maqan meeshaasi oo cunugan maaragtay waxbarashadiisa kor usii qaadi lahaa maxaad ku tilmaami lahaa adigu markasta oo la rabo in hawl la qabto in la isxanaanto horta waa muhiim inagu jaaliyadahan inaynu runtii wanaag isfarno oo isdhiirigelino oo ragga la dhiirigeliyo oo waalidiinta la dhiirigeliyo aabbayaasha la dhiirigeliyo waa wax muhiim si ardaydu u guuleystaan laakiin taasi cudurdaar uma noqonayso iskuulada Minneapolis arrintan u taaganayna waxa weeye arrintaas maartay cudurdaar uma noqonayso waxa weeye wasaaraddu miisaaniyad bay leedahay wasaaraddu waxa yaala dakhliga baa yaala waalidka kaalintiisa mar walba waa muhiim laakiin kaalintii kale baan runtii maartay anagu daliil u hayaa oo aan isleeyahay haddii ay ka soo baxaan waajibkooda inaguna aan dhinaca ka dhiirigelino jaaliyadeena isku duubnaan muujino way fududaanaysaa in maartay ilmihii guuleysto laakiin waa hawl u baahan in la iska wada kaashado ardayna kaliya ma guuleysan karo ama ha yaraado ama ha weynaado haddaanu ka helin taageero waalid ka helin haddaanu ka helin macallinkii haddaanu ka helin bulshadii kale ula noolaa oo aanu helin dad arrintii يعني سياسيين كل حساب تميل لسود ورنية ilmaha iyaga waxaan u rabnaa waxbarasho tayo leh oo arrintii daba socda oo aan ka daalayn marka taas waxay keenaysaa in markaa maartay ilmihiina la xisaabtamo oo ilmihii maartay say qulisi aan la sii deeyay gacanta lagu hayo siyaado runtii aad baad u mahadsan tahay runtii jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis aad ayay ku taageersan tahay xafladii ugu dambeysay runtii campaign-kaaga lagu taageerayay runtii jaaliyadu ay soo qaban qaabisay habeenkaasi dad badan ayaa yimid aad nooga hadlay ficnaantaada iyo weli waxyaalaha ay ka fili doonaan mustaqbalka adi ahaan marka aad fiirisid xilkan hadii Ilaahay kugu guuleysiyo waxyaalaha is leedahay Allah ilaahay waxbaad ka bedeli kartaa guddoonka waxbarashada haatan jira ee gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis
maxay tahay oo aad isleedahay la taaban karaa marka waalidiintuna ay waxtar u noqonayso horta waxaan ka mahadnaqayaa kalsoonida qiimaha leh ee shacabkaygu ii muujiyeen ummadda Soomaaliyeed si aan kala had lahayn ayay ii taageereen taageeradaasi farxad iyo diilo bay gelinaysaa iyo dhiiranaan inaan cod u noqdo ardaydooda Soomaaliyeed dhinaca kalena waxay igu noqonaysaa mas'uuliyad kale oo sii furshay oo marka kalsooni dadku culays dheeraad ah ku sii fuulaya marka waxa ku fuulaya amaana ku fuulaysa marka amaanadaana maartay ilaahay waxa ka barya inaan noqon qof dayaca jaaliyadu iyadoo aan kala had lahayn ayay saa ii taageertay waxaa kale oo maartay xusid mudan in culimada dhammaantood masaajidda waa meeshii inoogu muhiimsan bulshadeena asaaska maartay community-geena ay iyaguna ay si fiican ii taageereen waxyaabaha aan isleeyahay waad kusoo kordhin kartaa waxa weeye anigu xoogga waxaan saarayaa horta tayeynta iyo waxbarashada si ardayteedanu ay u helaan waxbarasho tayo in fursadaha ka jira Minneapolis in dadkeena looga faa'iideeyo tusaale ahaan haddii ardaygu ku liito maadooyinka qaar sida xisaabta iyo sayniska iyo inay helaan macallimiin dheeraada oo ka caawisa oo guryaha ugu tagto anigu waxay qorshaysan in arday kasta uu helo ardaygii ku liita maado ama nooca doonta baa noqotay inuu helo macallin guriga ugu taga oo ka caawiya marka iskuulka markay ka baxaan oo inta albaabka soo garaacaya macallinkii baa albaabka garaacaya taa qudheeda waalidku waxay siinaysaa fursad halkii ilmaha ay dhihi lahayn orad halkaa tago maaragtay lagaa caawiyo u aad maaragtay waxbarasho dheeraada in macallinkii ugu yimaado gurigii oo markaa ilmihii waalidkiina ay qayb ka noqdaan oo wixii la socdaan isla joogaan taasi horta waxyaabahan xoogga saaraya taasaa ka mid ah waxaa kaloo muhiim ah inay helaan ardaydu macallimiin tayo leh inay helaan oo runtii aan hubino tayada macallimiinta ardayda wax u dhigto taasina waa muhiim weyn waayo ardaygii waa inuu helaa macallin tayo leh moogta taasina waxay ku imanaysaa marka hore in dadkan macallimiinta khibradoodii hore aqoontoodii hore dadkan shaqada ma gudan karaan in daba joog lagu hayo waxaa kale oo iyada qudheeda ay qorshaysan inagu waxaan nahay dad Soomaaliyeed luqad baan leenahay luqadeenu waxay ka turjumaysaa dhaqankeena ka turjumaysaa waana waxaan isku afkarno dad badan oo heladeena baa jiro aan aqoon luqadda afka Ingiriisiga marka carruurteena inay wada hadlaan waa muhiim yani dalkeena waa ku xidhannahay waana ku xidhnaan doonaa marka waxaan isleeyahay afka Soomaaliga iyadana waxaan ku dadaalayaa bal in maaragtay laga shaqeeyo sidii carruurtan ardayda ah loo bari lahaa luqadda afka Soomaaliga laakiin sida su'aashaasi marka ma laga yaabaa in af Soomaaliga iskuulada loogu dhigi doono ma laga yaabaa kugu jirta in maado noocaas oo kale ah haddaba iskuulada qaarkood waxaa lagu dhigaa Carabiga lagu dhigaa Isbaanishka lagu dhigaa marka ma laga yaabaa si ay maaragtay carruurtii ay luqadii aysan uga lumin in macallin Soomaali ah carruurtii maaragtay uu baro xisad kale looga dhigo aad iyo aad arrintaasi wada hadallo badan baan ka sameeyey waxaana runtii waa ka bilowdeen laakiin waxaan isleeyahay haddii qorshayaasha igu jirta waxaa ka mid ah runtiina wax maaragtay wasaaradda waxbarashada dhib ku amaaha ilmuhu waxbarashadiisa kale sii siyaadinaysaa sii adkaynaysaa waxyaabaha loogaada waxaa ka mid ah ardayba arday uu ka luuqada badan yahay inuu maaragtay kasii fiican tahay oo maaragtay fahamkiisa iyo fursadaha shaqo ee hadhow mustaqbalka jiraba iskuulo badan baa jira oo luuqado badan oo kala gedisan lagu dhigo Faransiiska Chinese-ka Isbaanishka Carabiga marka yani luuqadeenu waa asaasi weyn oo tahay waa muhiim arrintaas waxay ugu jirtaa qorshayaasha aan rabo in haddii ilaahay xilkay u guuleeyo inaan marka ugu horeysa ku dhaqaaqo dareenkaasna dad badan oo madax waan la wadaagay waxaana ku kalsoonahay in maaragtay arrintaas ay suurtagal tahay suurtagelina doonto
aad runtii waxaa kaloo jira cabdi warsame oo uu ka horeeyay jaaliyada Soomaalida runtii ay doorteen inuu ku guuleysto xilka city councilka runtii jagada uu ordayay jaaliyada runtii aad bay u tagartay xafladaada ugu dambeysay lagu qabtayna cabdi warsame ayaa runtii ku endorse garay oo ku yiri aniga waan raacsanahay waliba jagadayda buu yiri waxa ka muhiimsan jagada maartay si aad u ordayo marka sidee kula muuqataa marka ninkii ka horeeyay jaaliyadiiba dooratay oo kursi maartay meel ugu sareysan la geeyay adigana ku soo xigtay dabcan ma isleedahay marka kursiga waaba heshay runtii taageerada cabdi warsame waa wax weyn oo lagu farxo walaalkiina uga mahadnaqaya waana wanaag u soo kordhay bulshada Soomaaliyeed in maanta aan ku leenahay golaha deegaanka Minneapolis xubinna aan ku leenahay Soomaaliya oo maanta maartay xafiisan ku hirano aynu leenahay anigana waxa sharafiisi ah xaafadaasan deganahay oo waxana dadkii cabdi doortay qaybna ka ah oleysi marka arintaas dhiirigelin weyn bay siinaysaa waxay kala abuuraysaa inaan iskaashano waa run waxbarashadan booska hadda aan u tartamayo ah tageynta waxbarashada iyo inaan talada guddoonka waxbarashada carruurteena wax ku yeelano oo mustaqbalka carruurteena wax laga weydiiyo wax weyn oo dhiirigelinaya weeye waana arrin aan aniga iyo cabdi warsame iyo dhammaan qaybaha kala gedsan bulshada iyo culimada iyo u baahan inaanu ka fariisano oo talacad ka qaadano oo iska kaashano marka xagga kale doorashada kalsooni weyn baan ku qabaa inaan ku guuleysan doono sadaqada waxay ka bilaabataa baa la yiraahdaa guriga marka haddii bulshadayda Soomaaliyeed si isku duubnaa ay wada taageereen taas xitaa waxay dhiirigelisay qowmiyadihii kale ee la noolayn inay iyaguna soo dhiiradaan oo maartay ay taageereen muujiyaan marka waa arintii wax sharaf iyo abay tahay anna waxaan ku dadaali doonaa inaan dadkaas aan shaqo fiican u qabto السلام عليكم السلام عليكم habeenkii ugu dambeysay xaafadda Cedar Brian Cole runtii kumanaan Soomaali ah runtii hoolka isugu timid markaad soo hor istaagtay dhamaantood runtii wiji farxad leh kuraasti intay ka wada kaceen bay ku yar istaageen dareenka sidoo ah dareen aad iyo aad u qiiro badan buu ahaa dadkay waxay muujiyeen kalgacal bay muujiyeen aad iyo aad maartay bay isu dhaweeyeen kalgacalkaasi dhinaca farxad uu yahay oo dadkayga jecel waxaan ku farxo weeyeen dhinacna waxa weeye waa mas'uuliyad kale oo sii fushay taasoo ah in maartay aan amaanada si fiican uga soo baxo oo marka dadku kalsoonida inta la ku muujiyaan adna waxa laga rabaa inaad dadaalka sii badisid marka arintaas aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa bulshada ku nool gobolka Minnesota si fiican ma isku naqaanaa muddo ku soo jiray aniga runtii qof jecel dadkiisa oo bulshadiisa ku xidhan oo markasta ku faana dadkiisa waxaana qabaa gobolkan Minnesota inaan ku soo siyaadinay wax aad iyo aad far badan inaan ku soo siyaadinay dhaqaale inaan ku soo siyaadinay maaragtay dhaqamo wanaagsan inaan ku soo siyaadinay inaan horumarka qayb ka nahay dhinac kasta waanagan hadda inaga ka hadlayno waxbarashadii dadkan hadda aan leenahay caawino Soomaali kaliya ma halkan Soomaaliya ma waxa ilmo kasta oo jooga meesha waxaan rabnaa gobolka inuu helo waxbarasho tayo leh kuwa madow kuwa cadaanka kuwa laatiinaha qof kasta ilmo kasta waxaan rabnaa inuu guuleysto hawlahaasna waxaan rabnaa inaan hormuud ka noqono oo anagoo maartay Soomaaliya oo dhaqankeena iyo diinteena haysana inaan dadka hor kacno oo aan noqon maartay dadka maartay daba socda marka waxaan ku kalsoonahay taageerada bulshadayda
waan uga mahadnaqayaa isku duubnidaasna waa wadaynaa insha allahu tacaala. aad iyo runtii gabagabadii iyo gunaanadkii ayaanu soo gornay siyaado adigoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga ah Liban Show studio-ha TV-ga qaranka aad fadhidid jaaliyada Soomaalida ee ku daawanaya ha noqoto wadankii Soomaaliya iyo kuwa gobolka Minnesota kula joogaba fariinta ku aadan adigoo kaamirada fiirinaya fariinta ku aadan aad hawada u marin lahayd maadaama adigu musharax tahay iyo waxyaalaha aad ka dalban lahayd maxay tahay fariinta koowaad ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka ama qurbaha iyo dalkeena hooyaba aan faraya wax weey in muhiimadda koowaad aan siino waxbarashada. haddii aan waxbarashada xoogga saarno dhibaatooyin fara badan iyo isfahan waan badan oo jira wuu ka baxayaa meesha. marka dadka dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibadiisa ku nool qurba joogtaba waxaan leeyahay fadlan waxbarashada xoogga saara waana waajib diini weeye inaan waxbarashada dhiirigelino. ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa kariimka wuxuu ku leeyahay hal yastawi alladina ya'lamuuna walladina laa ya'lamuun miyay siman yihiin dadka aqoonta leh iyo kuwaan aqoonta lahayn. xikmadaha iyo quraanka aayaadka ku soo arooray ee dhiirigelinaya aqoonta waa tiro badan yihiin. Minnesota waxaan ka codsanayaa iyagoo isku duuban ka codsanayaa oo si Soomaalinimo walaaltinimo ehelnimo gacalnimo uga codsanayaa inay siiyaan taageero oo ay ii codeeyaan. aniguna waxaan ballan qaadayaa in aan maaragtay amaanadaas aan noqdo qof aan dayicin oo intii karaankiisa shaqadaas qabta. marka sadaqada waxay ka bilaabataa guriga dadkayga taageeradiisa aan u baahanahay dad iyaga kalena waan helayaa haddii aan dadkayga oo isku duuban taageeradooda helo. waana uga mahadnaqayaa taageerada ay muujiyeen. fariintaas ayaan farayaa dadka kana codsanaya inay taageero siiyaan si marka aan ilmaheena mustaqbalkooda wixii aan ka qaban karo aan ka qabto. waa hagaag daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa waraysigii gaabnaa oo aan la yeelanayay musharax Siyaad Cali oo u tartamaya guddoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis waa gobolka Soomaalida ay aadka ugu badan tahay. dhanka farsamada waxa iga kaalmeeyay saaxiibkay Ilyas Macu tafatiraha Muqdisho Times. Thank you. tan iyo kulantideena dambe oo xiiso leh waa anigoo ah Liban Hussein iyo waliba Liban Show oo toddobaad walba barnaamijyo xiiso galiya aan idin soo gudbin doono. waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.